koox dhaqaatiir Mareykan ah ayaa ku dhawaaqay in ay si guul ah ugu dhamaatay qaliinkoodii ugu horeeyay ee gacmaha lagu beerayo cunug yar 2 sano ka hor. Hadda waxay dhaqaatiirtu ku faraxsan yihiin in cunugii yaraa ay suuragal tahay in uu gacmihiisa cusub ku qaadi karo alwaaxda culus ee lagu ciyaaro basketballka. Dhaqaatiirtan oo ka tirsan isbitaalka carruurta ee Philadelphia ee dalka Mareykanka ayaa cilmi baaristooda ku faafiyay journalka The Lancet ee arrimaha caafimaadka Arbacadii la soo dhaafay. waxa ayna ka hadleen sida ay ugu faraxsan yihiin uguna faanayaan horumarkan uu sameeyay ilmahan yar, iyadoo markii hore laga cabsi qabay in maskaxdiisu ay la qabsan weydo gacmahan cusub ee ilmahan yar lagu rakibay. Cunugan yar oo lagu magacaabo Zion Harvey oo hadda ah 10 jir ayaa sanadkii 2015 waxa lagu beeray gacmo aan ahayn kuwii uu ku dhashay. waxa uu ku dhashay 2 gacmood oo dabiici ah, laakiin dhaqaatiirta ayaa ka jaray kadib markii uu ku dhacay caabuq khatar ah oo laga baqay in uu ku faafo jirkiisa kale. sidaas oo kale kaliyihiisuna way hawl gabeen markii uu 4 jir ahaa, laakiin hooyadii ayaa u bixisay oo mid ka mid ah kaliyaheeda u saartay si nafsadiisa ay u badbaadiso. dhaqaatiirta ayaa sheegay in Harvey ay hadda u suurtagelayso in uu wax qoro, waxna cuno, labisto sidoo kale isagoo adeegsanaya gacmihiisa cusub. gacmahan oo ah kuwa lagu tabarucay ayaa haddana waxaa si toos ah ula qabsaday maskaxdiisa.